ay ka hirgelisay gudaha dalka Soomaaliya gaar ahaan caasimaddiisa Muqdisho. Waxaan maanta ku sugannahay mashruuc lagu magacaabo Boundary Project oo ka koobnaa 4 guri ama 4 villo oo guryo u dhisan ama loo nashqadeeyay ay noqdaan dabaqa dhulka oo ah dabaqa ugu horeeyo, dabaqa koobaad iyo dabaqa labaad. Ground floor-ka waxa uu ka kooban yahay 2 qaybood oo isugu jirta qayb ah fadhi weyn oo aad u ballaaran oo loogu talagalay inay martida iyo ehelka iyo aqrabaduba ay ku qaataan waqtiyadooda nasashada iyo xilliyada ay soo boqdaanba. iyo sidoo kale qayb sidoo kale loogu talagalay in ay noqoto qadada ama halka lagu cunteyn lahaa. sidoo kale waxa uu leeyahay qol jiifa oo master room ah oo u gaara oo leh musqul isaga u gaara iyo sidoo kale musqul u dhaxaysa labada qaybood ee dining-ka iyo fadhiga. dabaqa koobaad waxa uu ka kooban yahay 4 qol oo jiifa, qol walbaana uu leeyahay musqul u gaara iyo sidoo kale qol yar store oo loogu talagalay in uu kaydsado waxyaabaha ee u gaarka ah familiga digi doona insha Allah. dabaqa ku xiga ama dabaqa ugu sareeya waxa uu ka kooban yahay 3 qol oo jiifa, 2 qol oo kamid ah 3daas qol waxa ay leeyihiin musqul u gaara. qolka kale saddexaadna waa qol VIP master room ah kaasoo leh balcony isaga u gaara, jacuzzi ama musqul aad u casriya oo loogu talagalay in familiga qaybta ugu culus inay degaan oo ay ku qaataan